السلام عليكم داوديك شرفت بدن maanta waxaa rabaa inaan kula wadaago qisada guusha ah ee shirkadda caanka ah ee loo yaqaan Red Bull. Bull waa shirkad private company ah oo laga leeyahay dalka Australia. Shirkadani waxaa la aasaasay sanadii 1987. Shirkadani waa shirkadda soo saarta cabitaanada caanka ah ee loo yaqaan Red Bulls. Xarunta ugu weyn ee shirkadda Red Bull waxa ay ku taalaa dalka Australia magaalada loo yaqaan Fosgill. sanadii 1994 waxaa jiray tartamo adag oo u dhaxeeya shirkadaha soo saara energy drinkska iyo cabitaanada aashitada. Shirkadani Red Bull waxa ay rabtay in ay qabsato dhammaan suuqyada magaalada London, laakiin sida hore idinkugu soo sheegayba waxa ay jiray tartan adag oo u dhaxeeya shirkadaha waaweyn ee soo saara cabitaanada sida Pepsi, Coca-Cola iyo Sprite. shirkadda Red Bull kuma isagama bixinin xayisiimo iyo dhahyo qaali ah inay sameyso, laakiinse waxay isticmaashay fikir ka duwan fikradihii hore ee dhammaan shirkadihii hore ee wax ku suuq geyn jireen. Shirkadda Red Bull waxay la timid istiraatiijiyad ka duwan istiraatiijiyadihii hore ee kambaniyada wax ku xayisiiman jireen. Istiraatiijiyadda cajiibka ee la timid shirkadda Red Bull waxa ay sameeyeen dhammaan gasaacyada shirkadda cabitaanadooda oo faaruq ah waxa ay ku daadiyeen dhammaan goobaha qashinka ee magaalada London si dadka ay ugu maleeyaan in Red Bull ay yihiin shirkad cabitaan ah oo caan ah isla markaana dad badan ay cabaan maadaama gasaacyadooda meel walba ay ku arkaan. taasi ayaa sababtay in qof walba uu ku dhiirado in uu gato cabitaanada Red Bull. Shirkadani maanta loo yaqaan Red Bull waxa ay suuqa saamiyada cabitaanada ku leedahay saami weyn oo ah 38% ah. shirkaddan istiraatiijiyadan ay isticmaashay ayaa waxa ay sababtay inay noqoto shirkad guuleysata. maanta waxay awgeed shirkadda Red Bull maanta waa shirkad saamigeedu uu dhan yahay ama dhaqaale ahaan haysata lacag ku dhow 20 bilyan oo dollar. haddaba mar walba u fakir si ka duwan sida dadka ay u fikiraan si aad u soo saarto ama u jeexdo waddo ay dadka mari jirin oo adiga ku gooni ah.